ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay ahaa ka qabtay xaafadda Kandhaleed ee gudaha magaalada Burco saddex nin kuwaas oo laga shakiyay inay ku lug leeyihiin falal argagixiso saddexda nin ee ciidamada boolisku qabteen ayaa mid ka mid ah ka soo jeeda asal ahaan gobolka Togdheer kana tirsan yahay shaqaalaha shirkadda Telesom ee gobolka Togdheer halka labada kalena ay ka soo jeedaan asal ahaan koonfurta dalka Soomaaliya howlgalkan ay ciidamadu ku soo qabqabanayeen saddexda nin ayaa qaatay muddo kooban taasoo qabashada nimankan ay ciidamadu u adeegsadeen taashirada rasaas oo aan ay ciidina waxba ku noqonin maamulka gobolka Togdheer iyo hoggaanka ciidamada booliska ayaa iyagu ka gaabsaday inay wax faahfaahin ka bixiyaan howlgalkan xalay ka dhacay magaalada Burco iyagoo hadalkooda ku soo koobay inay socdaan howlaha baaritaan ee la xiriira falkani geesta kale waxa habeenkii xalay ahaa mar labaad ku soo rogaal celisay magaalada Burco diyaaradan heybteeda la garanaynin oo guux iyo cabsi badan ku abuurtay dadka magaalada waxaana guuxa diyaaradaasi bilaabmay salaadii maghrib kadib iyadoo diyaaradan ay hawada magaalada Burco ku sugnayd tan iyo xilliga ay ciidamada booliska howlgalkani fulinayeen abaaro 10 barkii habeenimo ay ka fulinayeen xaafadda ay ku sugnaayeen raggani ay ciidamadu qabteen waxaana arrintaasi noqotay mid ay bulshada badankeedu sheegayaan in diyaaradan iyo qabashada raggani uu xidhiidh ka dhaxeeyo iyadoo geesta kalena ay soo baxayaan warar sheegayeen saaka subaxii hore madaarka magaalada Burco ay wax diyaaradaha soo fadhiisan in muddaaba ay diyaaradii soo fadhiisatay sidoo kalena ay jiraan in qaar ka tirsan warbaahinta Soomaaliland ay maalintii shalay ahayd qorayeen in saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka wadamada reer galbeedka ay ku sugan yihiin Soomaaliland dadweynaha magaalada Burco ayaa iyagu si weyn u hadal haya arrintan iyadoo maqaaxiyaha iyo goobaha fadhi ku dirarkaaba ay dadku aad u hadal hayaan falkani habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada Burco iyo diyaaradda labadii habeen u dambeeyay ku sugnayd hawada magaalada Burco maaha markii ugu horeysay ee ciidamada ammaanka ee gobolka Togdheer ay gacanta ku soo dhigaan dad looga shakiyay inay ku lug leeyihiin argagixiso kuwaasi oo haatan kiiskooda ay gacanta ku hayaan ciidamada booliska ee Soomaaliland iyadoo la sheegay in isla xalayba in saddexda nin loo dhaadhiciyay caasimadda Soomaaliland Hargeysa Maxamed Cawad Maxamed shabakada caalamiga ee Odweyne News Burco.